hal erey oo ka kooban 4 xaraf oo noloshaada badbaadinaya awoodda uu leeyahay aawadeed. waa erey odhaahdiisu kooban tahay laakiinse badanaa ay adag tahay inaad afkaaga ka tidhaahdo maadaama aad ixtiraam weyn u hayso dadka kugu hareeraysan. marka aad barato habka loo isticmaalo ereygan waxa noloshaada ku soo hadhi doona xidhiidhada daacadda ah, waayo ereygani waxa uu awood u leeyahay inuu dibadda u soo saaro xaqiiqada qarsoon. assalaamu calaykum, anigu waxaan ahay maxamed faysal cali. ugu horrayn intaanan muuqaalkan bilaabin fadlan sabskaraib saar kanaalkayga si aad ula socon karto muuqaalo kale oo xiiso badan insha allah. kelmaddani waxay badbaado u tahay noloshaada, waayo haddii aad barato isticmaalkeeda waxa sare u kacaya qiimahaaga qofnimo iyo inaad adigu ka faa'iidaysato wakhtigaaga yar ee kooban. waxaan dareemayaa inaad aad u xiisaynayso inaad wax ka ogaato ereygan qiimaha badan. haddaba ka hor inta aanan kula wadaagin kelmaddan ii ballanqaad inaad ka faa'iidaysan doonto awoodda ereygan oo aan kuu ogahay inuu noloshaada u yeeli doono dhadhan iyo xiise aad u weyn insha allah. kelmadda sidaa u awoodda badani waa kelmadda maya oo ka kooban 4 xaraf oo keliya, laakiinse badanaa ay ku adag tahay dadka badankiisa inay ku idhaahdaan maya dadka ay jecel yihiin. waan ogahay inaad ka cabsi qabto inaad weydo dadka ku jecel iyo qaar aad jeceshahay kadib isticmaalka ereygan, laakiinse waxaan kuu ogahay qofka ku jecel ee daacadda ahi inaanu kaaga tegi doonin marnaba wax adiga danku ah, waayo waxa uu kula jecel yahay wax kasta oo wanaagsan. aragti kasta oo aad u soo jeedisana wuu kugu taageeri doonaa. qodobkani waxa uu kuu sahlayaa inaad si fudud ku kala barato xidhiidhada daacadda ah iyo kuwa beenta lagu sasabo. ku dheh maya marka aad khatar ugu jirto inuu wakhtigaagu ku lumo goobo iyo waxyaabo aan micno badan u samaynayn noloshaada. ku dheh maya marka aad diyaar u tahay inaad qabato wax adiga kuu muhiim ah. ogow, haddii aad doonayso inaad meel sare gaadho inay waajib kugu tahay inaad afkaaga ku badiso kelmadaha badbaadada u ah noloshaada. ku dheh maya maya maya, waayo wakhtigaagu waa mid kooban, lagamana yaabo inaad dib u hesho daqiiqada kaa khasaarta. mararka qaar way ku habboon tahay noloshaada inaad noqoto qof keliya ka fikira naftiisa, waayo waxaad ka badbaadaysaa khataraha badi dadka soo food saara ee ay ka midka yihiin qoomamada, calaacalka iyo wax kasta oo u caadi ah dadka badankiisa. ereygani faa'iidooyinka uu leeyahay waxaa ka mid ah: 1. waxaad muujinaysaa mar kasta oo aad ereygan isticmaasho inaad tahay qof xor ah oo aragtidiisa iyo fikirkiisa si bilaa cabsi ah u gudbin kara. waxaad noqonaysaa qof aad loo ixtiraamo go'aanadiisa, waayo waxaad naftaada ixtiraamtay ka hor inta aanad ixtiraamin kuwo kale. waxaad dadka kale u noqonaysaa tusaale lagu daydo maadaama aad u muuqanayso qof aad iskugu kalsoon. waxaa kugu yaraan doona kelmadaha iyo hadallada ay isticmaalaan dadka daciifka ahi, sida inaad markasta dusha u saarto khaladkaaga dad kale iyo wakhtiga. waxaad ka tanaasuli doontaa inaad u calaacasho dadka kale, waayo calaacalku waa calaamad lagu garto dadka aan noloshooda gooni u maamuli karin, dhibaatada soo gaadhana xal u heri karin. haddaba ka hor intaanad isticmaalin ereygan maya waxaad u baahan tahay inaad ugu horrayn barato sida ugu habboon ee aad u isticmaali karto ereygan maya. waxaa ka mid ah ereyada aad isticmaali karto inaad qofka ku tiraahdo maya ma awoodo walaal, waad ku mahadsan tahay inaad i weydiiso, walow aan ka xumahay inaanan qaban karin hawshaas. haddii aanad rabin inaad hawl qabato ku odhanin waan ka soo fikirayaa, u sheeg runta kuna dheh ma awoodo, waayo waxaa meesha ka bixi doontaa inuu qofka kale kaa rajo qabo, adigana waxay kugu noqon doontaa culays, wakhti badanna waad ku lumin doontaa inaad ka sii fikirto ballankaas. ugu dambayn ha sheegin been, waayo beentu waa haligi halis badan. sidoo kale isweydii ka hor inta aanad isticmaalin ereygan 2 su'aalood: goorma ayaad odhanaysaa ereyga maya iyo sababtee ayaad u odhanaysaa ereyga maya. haddii ay su'aalahan jawaabahooda xumaadaan ku dheh maya, hawshaadana sii wado. ugu dambayn isla maantaba tijaabi isticmaalka kelmaddan, iskuna qasab xitaa haddii uu kugu adkaado maalmaha hore, waayo waxa ku xidhan xiisaha iyo sharaftaada qofnimo. waxaa inoo ballan ah nolol qurxoon insha allah.